Saaxiibayaal ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Bilowga filimka waxaan aragnaa nin boodhikaara oo lagu magacaabo Michael, wuxuuna la shaqeeyaa hay'adda amniga qaybteeda ilaalinta shakhsiyaadka. Dhinaca kalena London, Michael wuxuu ahaa midka ugu adag sidoo kalena ugu dagaalka badan. Sidaa darteedna wuxuu ahaa qofka ugu muhiimsan ee hay'addan ka tirsan. Michaelna hawshiisa waxay ahayd ilaalinta Takeshi, kaasoo ahaa ganacsado hubka ka ganacsada. Burcad badanna ay doonayeen inay dilaan asaga. Hawl adag ayay ahayd in laga hortago arrinta, laakiin Michael wuxuu ku guuleystay inuu hawshaa qabto, wuxuuna Takeshi geeyay aylaboorka si uu meesha diyaarad uga raaco. Aad buuna u faraxsanaa asagoo rajaynaya in hawshaan lagu dalacsiiyo, laakiin si lama filaana waxaa loo toogtay Takeshi, halkaa ayuuna ku dhintay. Michaelna markuu arrintan arkay aad buu u naxay, sidoo kalena wuxuu taagnaa meesha sababtoo ah waxaa hoos u dhac ku yimi shaqadiisii hay'adda amniga. 2 sano kadibna Michael shaqo cusub ayuu helay. Hawshiisana waxay ahayd inuu sugo ammaanka lawyer lagu magacaabo Cypher, sababtoo ah Cypher waxaa loogu hanjabay in la dili doono. Michaelna hawshiisa waxay ahayd inuu ilaaliyo asaga, balse gaangistara ayaa soo weeraray asaga waxayna isku dayeen inay dilaan qareenka. Sidoo kalena waxaan aragnaa Michael oo burcadii soo afjaray asagoo aan wax huba isticmaalayn, wuxuuna halkaa ku difaacay qareenka, halka qareenkuna markuu arrintan arkay uu aad u farxay. Dhinaca kalena xarunta hay'adda sirdoonka ee Belarus waxaan aragnaa madaxweyne Djokovic, kaasoo ahaa nin halis badan, sidoo kalena cadow badan ayuu lahaa, waxaana asaga looga shakisnaa inuu ku lug leeyahay howlo halis badan. Intaa kadibna Djokovic wuxuu ogaa in Professor Asimov uu waday mashruuc asaga ka soo horjeeda danihiisa, sidoo kalena mashruucan wuxuu khatar ku yahay jiritaanka Djokovic iyo dowladdiisa. Dhinaca kalena Djokovic wuxuu dilay qoyska Professor Asimov, laakiin nasiib wanaag arrintan saxaafadda ayaa ogaatay, arrintaa oo sababtay banaanbaxyo waaweyn inay dhacaan. Kiiskaanna maxkamadda ayaa loo wareejiyey hadda, waxaana hadda daawanaynaa Professor Asimov oo sheegaya sida ay wax u dhaceen, halka Djokovicna asna uu joogay maxkamadda, balse wax caddaymaha oo ku filan waa loo waayay Djokovic. Sidaa darteedna warbaahintu waxay bilaabeen inay dadka ku wargeliyaan qof kasta oo kiiskan caddayn ka haya inuu soo bandhigo si maxkamaddu ay u xukunto Djokovic. Dhinaca kalena xafiiska Interpolka waxaa lagu wareysanayaa Darius, kaasoo ka mid ahaa dilaayaasha ugu khatarsan ee dadka loo kiraysto. Ninkaana in muddaa wuxuu la shaqaynayay Djokovic, sidoo kalena muddadaas dad badan ayuu dilay oo cadow ku ahaa Djokovic, saas ayaana loo soo xiray asaga, balse wax dembiya ma qiran. Intaa kadibna wakiilada Interpolka waxay asaga weydiiyeen inuu caddeeyo in kiiskan uu ku lug leeyahay Djokovic. haddaad sidaas samaysina waxaan kuu sii dayn doonaa xaaskaaga. Intaa kadibna Darius wuxuu aqbalay arrintii loo soo jeediyey, sidoo kalena wuxuu ogolaaday in arrintaa uu maxkamadda ka caddeeyo. Intaa dabadeedna ilaalo badan ayaa ammaankiisa sugayay si uu maxkamadda uga caddeeyo dembiyada Djokovic. Sargaalad Amelia ayaana mas'uul ka ahayd geynta maxkamadda ee Darius. Ameliana sidoo kale waxay ahayd saaxiibadii hore ee Michael, waxaana jiray boloboleemyo badan kuwaasoo sababay inay kala tagaan. Dhinaca kalena intay ku guda jireen hawsha maxkamad geynta ah, gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa hortooda ku qarxay. Intaa kadibna meesha wuxuu isku dhac ku dhex maray booliska iyo burcad isku dayaysa in ninkan aan la geynin maxkamadda. Burcaduna maadaama ay aad u badnaayeen waxay ku guuleysteen inay laayaan dhammaan askartii marka laga reebo Darius iyo Amelia. Intaa kadibna Amelia iyo Darius waxay awoodeen inay halkaa ku dilaan dhammaan burcadii. Intaa dabadeedna Amelia waxay joojisay Darius, sidaa darteedna ma uusan isku dayin inuu ka baxsado ayada. Intaa kadibna Darius wuxuu gabadha u sheegay in qof Interpolka ka tirsan uu xogtaan siiyey Djokovic iyo burcadiisa. Intaa dabadeedna Amelia waxay Darius geysay meel nabdoon, sidoo kalena waxay ku guuleysatay inay ammaankiisa sugto. waxaana halkan ka ogaanaynaa in Jane uu xogta la wadaagay burcadda, sidoo kalena Jane wuxuu ahaa gacanyaraha maamulaha Interpolka. haddana waxaan aragnaa Jane oo xogta Interpolka la wadaagaya Djokovic iyo halka ay aadeen. muuqaalka xigana waxaan aragnaa Amelia oo soo wacday Michael, waxayna asaga weydiisatay inuu ka caawiyo maxkamad geynta Darius. Intaa kadibna Amelia waxay Michael ugu hanjabtay hadduusan hawshaan la qaban in shaqada ay ka eryi doonto. Intaa dabadeedna Michael wuxuu u tagay Amelia. haddana waxaan ogaanaynaa sababta ay labadooda ku kala tageen inay ahayd dilkii loo geystay ganacsadaha hubka, kaasoo uu ilaalinayay Michael. iyo Dariusna markay is arkeen way isdagaaleen, sababtoo ah horay ayay isku yaqaaneen, maxaa yeelay Darius wuxuu horay u laayay boolis badan. intay isdagaalayeenna Darius wuu miir beelay, kadibna dhiig ayaa lugtiisa ka socday sababtoo ah intuu iska hor imaadkii hore socday waxaa asaga toogtay burcadda Djokovic. haddana waxaan aragnaa Amelia oo daawanaysa Darius, sidoo kalena Michael waxay ka codsatay inuu sugo ammaanka Darius inta maxkamadda laga geynayo. intaa kadibna
kadibna Amelia waxay aaday sargaalka Interpolka si ay arrintan ula wadaagto isla markiina burcadii Djokovic ayaa meesha timi waxayna isku dayeen inay dilaan Darius balse dagaal ayaa halkaa ku dhaxmaray sidoo kalena Mitchell ayaa meesha yimi intaa kadibna Mitchell iyo Darius waxay halkaa ku dileen burcad badan intaa dabadeedna gaari ayay goobta kaga baxsadeen laakiin burcadii ayaa soo eriyaday ayaga sidoo kalena rasaas ayay ku fureen ugu dambeyntiina Darius wuxuu awooday inuu dilo burcadii sidoo kalena uu gubo gaarigooda intaa kadibna Mitchell wuxuu Darius weydiiyay sababta uu dambiyadan ugu cadeynayo Djokovic wuxuuna ugu jawaabay in Interpolka uu heshiis kula galay arrintan si xaaskiisa loogu sii daayo wuxuuna ayada bartay markuu badbaadiyay kadib markuu goobta ku caawiyay kadibna labadoodii waxay bilaabeen inay isjeclaadaan kadibna way isguursadeen si kastaba ha ahaatee waa la xiray ayada sababtoo ah faldambiyeedyada si wada jira ayay u fuli jireen lamaanahan intaa dabadeedna Mitchell iyo Darius socodkooda ayay sii wateen intaa kadibna Darius wuxuu Mitchell uga sheekeeyay qisadiisa sidoo kalena wuxuu u sheegay in aabihii uu kaniisadda ka shaqayn jiray sabab la'aanna la dilay asaga xilligaana waxaan jiray 17 sano sidoo kalena waxaan ku guuleystay inaan dilo ninkii aabahay dilay kadibna waxaan noqday dilaa xirfad leh intaa kadibna waxaan bilaabay inaan la shaqeeyo Djokovic intaa dabadeedna labadooda waxay gaareen Amsterdam waxayna aadeen guriga Mitchell laakiinse Darius wuxuu ku guuleystay inuu halkaa ka baxsado inkastoo ay weli burcadu meel kasta ka raadinayeen asaga intaa kadibna Mitchell wuxuu asna ku guuleystay inuu soo qabto Darius waxayna ku wada heshiiyeen inay hadda wada shaqeeyaan intaa dabadeedna Darius wuxuu Mitchell u sheegay in asaga uu yahay qofkii dilay ninkii ganacsadaha ahaa uu waardiyeynayay Mitchellna markuu arrintan maqlay aad buu u xanaaqay sidoo kalena wuxuu garaacay Darius wuxuuna u sheegay in naftiisa uu ka badbaadsado intaa kadibna Mitchell wuxuu fariistay maqaayad bartamaha magaalada ku taala laakiin si lama filaan ayay koox u soo weerartay Darius waxayna isku dayeen inay dilaan asaga balse Mitchell ma xiisaynayn arrintan intaa dabadeedna wuxuu dareemay in Darius uu khatar ku jiro intaa kadibna wuxuu isku dayay inuu caawiyo Darius sidoo kalena wuxuu bilaabay inuu toogto burcadii laakiin Darius wuxuu ku guuleystay inuu goobta isaga baxsado asagoo doonka haysanaya halka burcadiina ay gacanta ku dhigeen Mitchell si ay u ogaadaan xogta meesha uu aaday Darius laakiin waxba uma sheegin ayaga sidaa darteedna si xun ayay u jirdileen balse si lama filaana waxaa meesha u yimi Darius wuxuuna ku guuleystay inuu laayo dhammaan burcadii meesha joogtay si uu u badbaadiyo Mitchell maxkamadana ay u wada tagaan intaa dabadeedna Darius wuxuu asaga weydiiyay wax ku saabsan Amelia Mitchellna wuxuu asaga u sheegay Amelia inuu kula kulmay aaska askari Interpola Ameliana waxay halkaas ka soo xirtay walaalka askarigii dhintay sababtoo ah waxay ogaatay inay isdagaaleen dhinaca kalena Mitchell dhacdada goobjoog ayuu u ahaa wuxuuna ku guuleystay inuu badbaadiyo ayada sababtoo ah uu jeclaa intaa kadibna Mitchell wuxuu Darius u sheegay in gaariga ay bedeshaan si aysan burcadu u fahmin ayaga balse burcadii ayaa fahmay ayaga waxayna bilaabeen inay soo dabagalaan intaa kadibna Mitchell wuxuu wacay Amelia wuxuuna ayada u sheegay wax walba oo halkan ka dhacay sidoo kalena wuu raali geliyay ayada sababtoo ah wuxuu rumaysnaa in qof kasta dhimashadiisa uu ka dambeeyay iibiyaha hubka intaa dabadeedna Darius ayaa gaariga bareegiisa qabtay arrintaana waxay keentay in gaariga uu ka soo dhaco Mitchell sidoo kalena Darius goobta ayuu isaga baxsaday halka burcadiina ay soo eriyadeen asaga intaa kadibna Darius wuxuu ku guuleystay inuu burburiyo gaarigii ay burcada wateen ee soo eriyanaya asaga kadibna goobta ayuu isaga baxsaday halka Mitchellna asna uu isku dayay inuu goobta ka baxsado balse nin burcada kamida ayaa maqaayada ku soo weeraray kadibna ninkii halka ayuu ku dilay intaa dabadeedna Darius ayaa meesha yimi wuxuuna halka ka soo qaaday Mitchell wax yar kadibna waxay yimaadeen maxkamadda Dariusna wuxuu halka ka cadeeyay dhammaan dambiyadii uu galay Djokovic sidoo kalena wuxuu soo bandhigay sawirro Djokovic oo dad leynaya intaa kadibna maxkamaddu waxay booliska ku amartay in xabsiga la dhigo Djokovic laakiin si lama filaana gaari weyn oo xamuula ayaa ku qarxay afaafka hore ee maxkamadda Djokovicna asagoo fursadda ka faa'iideysanaya wuxuu qoriga ka qaatay nin boolisa kadibna wuxuu isku dayay inuu dilo Darius si kastaba ha ahaatee Mitchell ayaa badbaadiyay asaga kadibna Djokovic wuxuu isku dayay inuu goobta ka cararo balse Darius ayaa eriyaday asaga halka Ameliana ay isku dayayso inay qabato gacan yaraha madaxa Interpolka sababtoo ah wuxuu la shaqeynaya
burcadda Djokovic sidoo kalena ninka wuxuu ku dhawaaday inuu dilo Amelia balse Mitchell ayaa badbaadiyay ayada dhinaca kalena Djokovic wuxuu isku dayay inuu goobta ka baxsado asagoo diyaarad raacayo balse Darius ayaa meesha ku qarxiyay diyaaradii intaa kadibna wuxuu dabaqa ka soo tuuray Djokovic halka ayuuna ku dilay dhinaca kalena waxaan aragnaa Mitchell oo saaran ambalaasta sababtoo ah waa la toogtay asaga intaa kadibna Darius ayaa u yimi asaga wuuna u mahad celiyay sababtoo ah wuxuu badbaadiyay noloshiisa sidoo kalena wuxuu u sii daayay xaaskiisa intaa dabadeedna Amelia ayaa ayana meesha timi waxayna raali gelisay Mitchell muuqaalka ugu dambeeya ee filimkeenana waxaan aragnaa Darius iyo xaaskiisa oo jooga baarka una dabaaldegaya sanad guurada arooskooda balse dagaal ayaa meesha ka dhacay laakiinse markaan ma aysan danaynin dagaalka waxayna ku raaxaysanayeen noloshooda filimkeenina meesha ayuu ku soo dhamaaday haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan fadlan muuqaalkeena like saar sidoo kalena channelkeena ku soo biiro subscribe dheh oo ku mahadsan tahay la joogistaada